Maalin wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamij ku saabsan qisooyinka fanaaniinta iyo weliba sheekooyinka fanka Soomaalida. Maanta barnaamijka waxaynu kaga hadlaynaa qiso ku saabsan fanaanka weyn ee la holin waayay ee codka dahabiga lahaa, mid ka mid ah aasaasiyaashii fanka Soomaalida cusub, Wallaha u naxariistee Maxamed Axmed Kuluc. Qiso ku saabsan ayaynu soo qaadanaynaa. Qisadaasi waxay ka hadlaysaa sababtii uu Maxamed Axmed Kuluc xaaskiisii fanaanadii caanka ahayd Allaha u naxariistee Zahra Axmed Jaamac u dalaaqay oo warqadeedii u siiyey. Maxamed Axmed Kuluc waxa uu ka mid ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan, kuwooda laga yaqaano gudaha wadanka iyo weliba dibadiisa. Wuxuu ahaa fanaan siduu doona u heesa, waxaana lagu magacaabayay ama lagu naanaysayay aabihii masraxiyadda fanka Soomaalida. Maxamed Axmed Kuluc wuxuu ka mid ahaa dadkii soo bilaabay fanka Soomaalida cusub, seeska u dhigay, welibana gaadhsiiyey iminka meesha uu joogo. Fanaanka ayaa fanka ka soo bilaabay kooxdii Walaalaha Hargeysa, kadibna u soo gudbay magaalada Muqdisho. Maxamed Axmed Kuluc waxa uu ahaa fanaan codkiisu ay dadka ay jecel yihiin, iyo weliba habka uu soo gudbiyo heesaha iyo weliba jiliinka intaba. Sidaa awgeed ayaa lagu magacaabay aabihii masraxiyadda. Maxamed Axmed Kuluc waxa uu qabay oo xaaskiisa ahayd fanaanadii weyneed, iyadana Allaha u naxariistee Zahra Axmed Jaamac. Jacayl ay u gubeen ayuu ahaa mid ay seeska ugu dhigeen, ugu dambeyntii qoys ay aasaaseen. Fanaanka iyo fanaanadda ayaa iyagu jacaylkooda iyo shukaansigooda intaba waxaa laga ogaa gudaha fanaaniinta Soomaaliyeed iyo weliba dadyooga Soomaaliyeed intaba. Jacaylka u dhexeeyay labada fanaan waxa uu ahaa mid tilmaaman oo aad iyo aad dadku ay ugu daydaan, tusaalena u ah. Muddo kadib fanaanka iyo fanaanadda qoyskooda waa uu burburay sababo kala duwan awgood. Haddaba sababta ugu weyn ee labada fanaan ku kala tegeen ayay dadku fanka Soomaalida faaqida ama ku foogan falanqeeyana waxa ay tilmaamayaan inay sabab u ahayd hal sabab oo iyadu ka timid dhanka fanaanka weyn ee Maxamed Axmed Kuluc. Fanaanka Maxamed Axmed Kuluc kadib markii uu la aqal galay xaaskiisa, xaamilana ay naqatay, ayuu waxa u soo jeediyey fikrad ah in ay iska dayso fanka kana baxdo, naqatana marwo la qabo oo aqalkeeda joogta. Fanaanka ayaa isagu waxa uu jeclaystay xaaskiisa inaysan fanaan ahaanin, doonayana inay fanka iska dayso. Laakiin fanaanadda ayaa iyadu fanka aad u jecleed, hibana u lahayd, Ilaahna u siiyey. Waxay u sheegtay inay qoyska iyo fankaba awoodo inay isku wado. Fanaanka ayaa taas diiday, welibana muddo ayuu isku dayay, ay leeyihiin dadka fanka Soomaalida ka faalooda, inuu ku qanciyo fanaanadda inay fanka isaga baxdo maadaama iminka ay xaas tahay. Fanaanka ayaa doonayay in xaaskiisu ay noqoto gabadh aqalkeeda joogta, welibana qoyskeeda dhaqata. Ugu dambeyn waa uu ku qancin waayay fanaanada weyn ee Zahra Axmed Jaamac inay fanka isaga baxdo. Maxamed Axmed Kuluc ayaa ugu dambeyntii wuxuu go'aan ku gaaray, maadaama ay diiday inay fanka ka baxdo, iyaduna ay u sheegtay inay hibo fanka u leedahay, doonaysana inay wadato labada qoyska iyo fanaannimadana isku wadi karto. Ugu dambeyntii Maxamed Axmed Kuluc waxa uu go'aan ku gaaray inuu warqadeeda siiyo, kadibna halkaasi uu qoyskii ay seeska u dhigeen iyo jacaylkii ay soo ugubeenna uu ku dhammaado. Ugu dambeyntii sidaas ayaa dhacday. Gabadh ayay u dhashay fanaanka weyn ee Maxamed Axmed Kuluc. Intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena maanta. Dib dambe intaynu u kulmi doono nabaadiina nooli kulantay iyo amaano Allah.